حلوان عبد حاجي حلوان عبد أحمد الشيخ نور والسمعي واحد حلوان عبد سولك ولد العالم اليومي والله طلبات في عدك على الراديو ليش عم تعصر أحمد العالقي أحمد العالقي أحمد العالقي حامد وحاول هلي كنتم هي أفضل أيها هلي وعد هل عد وكمدنا وحمادي سيدا الكيسين سيدا دكتور أيها وحي كل غلين سيدتين يستقال عد وعلى بوش يقول على أحمد وعلي doorashada quruxda badan xorta ah xaasha sida nabadda ku dhacday maamulyahay waa la iga guuleystay Axmed Ducaalana waa guuleystay insha Allah taala waxaan codsanayaa dhammaan intii u codaysay madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo intii ka codaysay in la shaqeeyo ayaan ka codsanayaa waxaan soo dhaweynayaa xilka la ii doortay oo aan jeclahay inaan sida uu yahay inaan dhulka ka qaado galmudug ayaan ku dadaalayaa ilaahay idankii waxaan leeyahay golaha wasiirka arrimaha gudaha oo nala joogay iyo wasiirada kale iyo xildhibaanada kaleba war noo gollada waa liidanaay wala naloo roonaado ciidamada nabad sugidda kuwa amisom kuwa booliiska kuwa militariga walaalayaal ku soo dhawaada insha Allah taala waqtigan waqti ka dambeeya ma mushaar beeri doontaan mana raashin beeri doontaan ilaahay idinkii mushaar dambe oo la doonayaa ma jiro gudaha galmudug ayaanu ka helaynaa mushaarooyinkayga iyo waxaan doonaynaa saddex toddobaad ka hor bahayd markaan halka isugu nimid waan ku ballanay inaan isugu soo noqono inagoo isku dayna xilliga dhiman inaynu xal ka raadino dhinaceena kale ee maqan waa isugu nimid maanta doorashadiina waa dhacday galmudugna waxay dooratay madaxweyne marka xildhibaanada la doortiyo shacabku waa xisaabtamay doorashay xalaasheen xaafow xil baa yimi xilkas iyo mas'uul noqo waxaan arrintaa uga jeedaa waxaa horyaal madaxweynaha cusub oo loo doortay shaqo aad u adag waxaa ugu muhiimsan inuu doono dhinaca kale ee galmudug dhuusamareeb iyo ahlu sunna oo wada hadalkii uu hadda lagu soo kala yimi waa muhiim in albaabka nabad uu furmo maanta laga bilaabo albaabkeeda la furo waxa loo baahan yahay aad baan ugu diirsaday hadalladii furitaanka ahaa oo madaxweynaha cusub uu sheegay oo yiri waxaan ka shaqeynaynaa midnimo walaalaha maqan iyo hareeraha galmudug waa hadal aad qiimo u leh runtii waana xilli aad loogu baahan yahay 40 sano oo kulul iyo goob isaga istaag ah ayay Soomaaliya soo dhaaftay waxa la joogaa xilligii hore loo socon lahaa maalmihii madoobaana laga gudbi lahaa gacmahana la isqabsan lahaa wada jirna wax lagu raadin lahaa waa mas'uuliyad marka aad u weyn dhinacayaga ayaanu qabanaynaa dhinaceena qabta aan wada jirro galmudugna ha noolaato